dad badan baa Muuse markii la dooranayay madaxweynaha rajooyin ka qabay oo inuu maxaan ku raahdaa waa hal adag yahay waa caynkan sidana la yeelayaa laakiin qof kasta oo adduunka ama taariikh akhriya ama waxaaga way u cadeyd dariiqa Muuse mari doona maskaxda qofka bini aadamkii waqtiba sibay u shaqeysaa haddii maanta inteena aynu baslayaal wada nahoynu basaska ka shaqeyno markaynu isu nimaadnaynu soo wada noqono waxaynu ka sheekeynaa waa basaskii baski taayir baa bajaray sidana dhacday maanta markii aan lacagta ka ururinay mid baa lacagtii bixi waayay inantii lacagta way kala baxsatay sheeko cusub oo kale ma keeni kartaan Muuse jabhad buuha 30 sanadood waqti muhiim oo taariikh oo wadankeenu u baahnaa soo qabto soo mara 30 sanadood jabhad buuha maskaxdiisu jabhadnimay ku frame gareysanta wax ka baxsan ma arki karto waxay ahayd marka qofku taariikh umadiisa wuxuu soo qabtay intuu baneeyo in dad halkaa ka sii qaadi kara ay dabadeetana yimaadaan laakiin SNMT maxaa la oran jiray bacba ku xiran wuu ii soo faqaya wuu maxaan ku raahdaa hebel buu ka shakisan yahay dadhiiba madaxtooyada u gashay shakigii uu baa madaxtooyada yaalo dadka shacabkii Soomaaliland oo dhan ayuu bay bacdi SNM ku kala wada xiran oo aanu qofnaba qof u gudbaahayn waana qaabka ay u barbaareen tiimka maanta in xukuma mana bedeli karaan waayo maskaxdooda sida u fareen garaysa ha u fadhiinayeen institutions abuuraan waayo maskaxdoodu uma diyaarsan waxaynu u baahanahay in wadankeena institutions ka dhismaan hay'ado dawli ay ka dhismaan cidda dhisi kartaana waa wadani haddii la yiraahdo insha Allah